Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Cashirkan waa cashirkeenii labaad. Waxaan hore usoo qaadanay bus topology waxa la yiraahdo qaab dhismeed networking-ka qaab ka mid ah ayaan hore usoo qaadanay oo hore loo isticmaali jiray. Haddana waxaan qaadanaynaa midkii labaad oo isagana waa la isticmaali jiray oo hadda lama isticmaalo, laakiin waa network jiray oo adduunka soo maray oo ahaa waaye. Marka waxaa la yiraahdaa ring topology ayaa la yiraahdaa. Ring topology-ga waxaa waaye hal fiilo ayaa maaragtay lagu wada xiray oo wareeg ah sida ringi oo kale ayaa ringi waxaa loogu bixiyay sida faraantiga oo kale waa isku wada xiran yahay networking-ka waa wareeg. Marka computer walba waxaa neighbor la ah ama deris la ah laba computer. Marka faa'iidada uu leeyahay waxaa waaye cilad bixinta waa easy, si fudud ayaa loo cilad bixin karaa, easy to implement, si fududna waa loo set up gareyn karaa oo loo sameyn karaa network-gan. Laakiin ciladiisa waxay tahay computer-kan packet markuu diro oo uu diro computer-kan ayuu marsiinayaa ama computer-kan rabo inuu diro inta ayuu marsiinayaa. Hadduu rabo kan inuu u diro kale intana waa uga diri karaa intana waa uga diri karaa because labada dhinacba macnaha hal fiilo ayaa labada dhinacba ugu xiran. Marka faa'iidadiisa waxaa waaye waa speed-kiisa wuu fiican yahay oo very speed-kiisa aad ayuu u fiican yahay. Laakiin cilada ugu weyn uu leeyahay network-gan waxaa waaye haddii fiilada inta ay ka go'do ama inta ay ka go'do ama inta ay ka go'do ama inta ay ka go'do waxaa waaye hal meel hadday ka go'do waxaa waaye network-gan waa ku daayay oo network-gan bis waa u dhamaatay. Ciladaas cilada ugu weyn uu leeyahay waa ciladaas. Marka problemkaas ayuu qabaa. Waa la isticmaali jiray laakiin hadda lama isticmaalo network-gan oo hore ayuu adduunka usoo maray oo waa lasoo isticmaalay. Laakiin muhiimadeena waxay tahay anaga inaan fahanno network-gan inuu network jiray uu yahay oo hadda xataa la sameyn karo haddii qofka practical uu sameyn karo inuu sameyn karo ayaan maaragtay ujeedkeena. Qofkana uu ogaado network markaa tahay waa inaa from the beginning bilowgii network wuxuu soo maray inaa ogaato history-giisa inaa ogaato waa muhiim si hadhowda cilad bixinta ay kugu fududaato. Marka maanta waxaan qaadanay ring topology ayaan qaadanay. Marka haddii aan inta isla fiirino kale inta hadda aan sharaxnay waaye wuxuu ku leeyahay the ring topology qaab dhismeedkan oo ringiga camal ah is logical ring waaye ujeedaa wax logic ah waaye, meaning that the data traveling in a circular macnaha datada way wareegaysaa saas ayay u wareegaysaa ayuu ku leeyahay. Wuxuu ku leeyahay data travels in a circular fashion ayuu ku leeyahay from one computer to another. Computer ayuu ka imaanayaa datada computer kale ayuu maaragtay ayuu ku wareegayaa. Marka datada saas ayay u wareegaysaa ayuu ka wadaa macnaha intaas inuu ku fahansiiyo raba. Haddaa rabto computer-kan saana waa ugu diri kartaa saana waa ugu diri kartaa. Marka datada way wareegaysaa saas ayay u wareegaysaa marka. Marka ciladiisa waxay tahay haddii inta ay ka go'do waxaa waaye wax maaragtay hadda maaragtay uu faa'iido uu ku yeelanayo ma aha. Marka wuxuu leeyahay from the one computer to another computer network ayuu ku leeyahay. Computer ayaa laga dirayaa computer ayaa loo sii dirayaa. It is not a physical ring topology. Macnaha kan hadda ma ahan ku leeyahay wax oo physical ah oo la taaban kara ma ahan. This figure-kan uu ka wadaa macnaha wax picture ah oo maaragtay wuxuu ku leeyahay marka logical layout of the shows the logical layout of the ring topology. Marka wuxuu ku leeyahay note that the hub or switch is not needed this installation either. Kii horeba macnaha hub iyo switch uma baahneen. oo marka switch waxaan dhahnaa ama hubka waxaa waaye waa device oo inta la dhigaayo oo all the computers-ka hal ay ugu xirmayaan waaye. Toos waxay ku wada xirmayaan hubka ama switch-ka ayay ku xirmayaan. Laakiin asaga kan ma lahan waa centralized waaye waa hal meel la dhigayaa all the computers-ka ayaa kusoo xirmaya. Marka wuxuu ku leeyahay hub oo switch u baahna macnaha qaab dhismeedka oo maaragtay hadda network-gan uma baahna in hub ama switch la isticmaalo uma baahna. oo maaragtay hal fiilo ayaa lasoo gadanayaa oo computeradii ayaa lagu wada xirayaa ayuu ka wadaa macnaha. Marka waxaan barnay maanta ring topology ayaan barnay qaab dhismeedka network qaab ka mid ah ayaan barnay. Cashirkeena maanta intaas ayaan kusoo koobaynaa. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.